2010kii wadamada Carabta oo dhan waxaa ka bilowday kacdoon xoog badan. Kacdoonkanina dadku waxa ay doonayeen in dimuqraadiyo ay helaan iyo in boqoradani daa'ima xilka hay in la soo ciribtiro. Waayo wadamada Carabta waxaa ka jira nidaam boqortooyo. Boqorka talada haya haddii uu dhinto waxaa booskiisii galay wiilkii uu dhalay. Boqorkuse isma bedelo xilka waxa uu hayaa ilaa uu ka dhinto. Dad badan ayaana nidaamkani ka soo horjeestay, sidoo kalena waxa ay doonayeen wadamada galbeedka oo kale si dimuqraadi ah in la isku doorto. laakiin maadaama wadamada Carabta tani aysan ka jirin kacdoon xoog badan in uu bilowdo, dadku iyaga oo ka cawanaya dimuqraadi la'aan iyo xukun aanan isbedelin iyo shaqo la'aan iyo problemyo kala duwan iyaga oo cawanaya ayaa waxa ay bilaabeen in banaanbaxyo xoog badan ay sameeyaan. banaanbaxyadani wadamada Carabta hadba si ayuu u saameeyay. wadamada qaarkood sida Sacuudiga oo kale iyo Dubai iyo wadamada la midka ahba dadku meelo inta ay isku imaadaan sida madaxda oo kale khudbado ayay soo jeedin jireen. wadamadani oo dhanna kacdoonka hadba si ayuu u saameeyay. tusaale waxaa la bedelay Zaynul Caabidiinkii 32 sano ama 33 sano maamuli jiray dalka Tunis. sidoo kalena hogaamiyihii Masar Mubaarak Xusni ayaa xilka lagala wareegay. wadamadanise intaa ka dambeysay tartiib waxa ay bilaabeen nidaamka iyo sharciyada nolosha in ay wax ka bedbedelaan. tanina waxaa dhinac la dhihi karaa waa sababta Sacuudiga ugu wacan in sanadba sanadka ka dambeeya wadamada horumar sida Yurub oo kale inuu iska dhigo. si kastoo yahaataba kacdoonadani xooga badan ilaa maanta wadan aysan ka dhammaan ayaa jira. qaar ka mid ah wadamadaasina waa Yemen iyo Suuriya. muuqaalkanise waxaan ku arki doonaa wadanka Suuriya kacdoonkii xilligaa bilowday iyo kacdoonkaasi jihada uu aaday. dalka Suuriya kacdoonkii xilligaa bilowday ilaa hadda waa uu socdaa, waana sababta keentay in dad badan oo Suuri ah in dalkoodii ay ka soo qaxaan. waxaa macquul ah in Soomaaliya xitaa aad ku aragtay dad badan oo Suuriyaan ah oo soo qaxay oo aanan haysan meel ay seexdaan. si kastoo yahaataba dagaalkani Suuriya ka jira iyo qaxani waxa sababay ayaa muuqaalkani ku arki doontaa. dabcan Suuriya marka la dhahana waa meel taariikh fog leh, kamana hadli doono taariikhda fog ee dalka Suuriya keliya. 2010 wixii ka dambeeyay ilaa 2020 ayuu muuqaalkani khuseeyaa. waayo wixii ka horeeyay 2010 Suuriya waxay ahayd meel aad u wanaagsan, xitaa dad Soomaali ah ayaa halkani ganacsiyo ka samayn jiray. laakiin wixii 2010 yacni kacdoonkani dalka Carabta wadamada Carabta oo dhan ka bilowday kadib, Suuriyana waxa ay noqotay mid kacdoonkani uu saameeyo heer ay burburto. dowladda Suuriya marka dadka kacdoon ay ku bilaabeen sida Masar iyo Tunis ku dhacdo oo kale, xukuumadda Bishaar al-Asad si dadkani kacdoonka wada aysan dalka oo dhan ugu baahin waxuu dadka u isticmaalay in askar uu ka hor keeno. banaanbaxayaasha dadkani kacdoonka wada iyo askarta markay iska hor imaadeen xaaladda oo dhan way isbedeshay. waayo dadkani aad ay u xanaaqsanaayeen sanado badan boqoradani aanan isbedelin iyo dimuqraadi la'aan oo dalalkani ka jirta aawadeed waa ay u dulqaadan waayeen. inta aanan u gudbin banaanbaxayaashani Bishaar al-Asad uu askarta ka hor keenay, waxaa muhiim ah inaan ogaano waa maxay sababta keentay dadkani in ay kacdoon sameeyaan. kacdoonkani dadka waxaa ku kalifay in ay sameeyaan. nin gacan wada ahaa oo dalka Tunis ku noola ayaa waxa uu la kulmay dhibaato xoog badan. waayo wadamadani Carabta sababta dadka ku kalifi jirtay in ay kacdoon sameeyaan waxa ugu weynaa waxay ahayd dhaqaale xumo iyo xukuumadda oo arrintan waxba aanan ka qabanayn. waayo xukuumadda haddii la damca in la bedelana waa xukuumad aanan la bedeli karin oo nidaamka boqortooyada ku shaqaysa. sidaasi darteeda ninkani reer Tunis marka dhaqaale xumo xoog badan uu la kulmay, nolosha ayuu ka quustay, kadibna benziin iyo taraq ayuu qaatay, keligiisii ayaa isdilay. ninkani marka uu dab isku sheegay sida uu isku dilay, telefishinada marka laga soo daayay ninkani arrintiisii wadanka oo dhan ayay qabsatay. Tunis dadka reer Tunis waxa ay bilaabeen in xukuumaddii Zaynul Caabidiin inay ka hor imaadaan ayna ku dhaleeceeyaan waxyaabahani oo dhan. iyo dad badan oo xaaladda ninka uu ku sugan ayaa waxa ay bilaabeen in naftoodii ay hor dhigaan xukuumadda. ugu dambeynse waa ay ku guulaysteen 32 sano ninkii maamuli jiray ayaa
xukuumadda ka degay. Si kastoo ay ahaataba, ninkani reer Tunis wixii uu la kulmay waa sababta aasaas ku ah in kacdoonadani ay bilowdaan. haddaba Bishaar al-Asadka Suuriya maamula, kacdoonadani marka waddankiisa ay ka bilowdeen waxa uu bilaabay in askar dadkani uu ka hor keeno. dadka banaanbaxayaasha iyo askarta markay iska hor imaadeen, askartii marka ay xakameyn waayeen dadkani waxa ay bilaabeen inay xabadeeyaan. xabadahanise waxaa ku dhintay dad badan oo banaanbaxayaal ahaa. xanaaqii xukuumadda loo qabay dadku ay qabeen ayaa sii laba jibaarmay. xanaaqani markuu sii laba jibaarmay, dadku waxa ay bilaabeen inay xukuumadda oo dhan sida ay u ridi lahaayeen inay ka shaqeeyaan. tanina waxa ay dhali doontaa dagaalka Suuriya inuu ka qarxo, dad badanna inay qaxaan waa waxa sabab u noqon doona. isla markiiba dadkani banaanbaxayaasha waxa ay bilaabeen inay ishubeeyaan. hub iyaga oo ka helaya wadamada carabta qaar ka mid ah sida Sacuudiga iyo Qatar ayaa dhaqaale iyo hubba ku caawinayay. Bishaar al-Asadna kama uusan istaagin ciidankiisii in banaanbaxayaasha oo dhan inuu cirib tiro. dadkanise banaanbaxayaasha si kastoo ay u ahaayeen ciidan aanan isku nidaamsanayn, maadaama dad shacab ah oo hub qaatay ay ahaayeen, kuma aysan filneen inay iska celiyaan ciidanka Bishaar al-Asad. laakiin kacdoonkani dadkani ay wadeen shacabka ahaa, waxa ugu weynaa ee Bishaar al-Asad ciidankiisii dhabarjibay waa in ciidankii Bishaar al-Asad qaar ka mid ah ay taageersanaayeen kacdoonadani dalka ka socda, waxa ayna doonayeen in xukuumadda la bedelo. sidaas darteeda askar aad u badan ayaa ciidankii Bishaar al-Asad ka soo goosatay, waxa ayna ku soo biireen mucaaradka. kadibna dalka oo dhan waxa uu u kala baxay mucaarad iyo muxaafid, qolo taabacsan Bishaar al-Asad iyo qolo mucaarad ah. Bishaar al-Asad waxa uu taageero xoogan uu ka helayay Ruushka, sidoo kalena waxa uu ka helayay Maraykanka. laakiin mucaaradkuse waxa ay taageero ay bilaabeen inay ka helaan wadamada Sacuudiga iyo Qatar. taageerada dadka mucaaradka ay helayaan maadaama ay badatay, ciidan badanna Bishaar al-Asad uu ka goostay, waxa ay sabab u noqotay in mucaaradka qeybo badan oo Suuriya in ay qabsadaan boqolkiiba 50 hareerahani oo dhan mucaaradkii ayaa qabsaday. waddanka oo dhan waxa uu noqday meel boqolkiiba 50 mucaaradka ay ka taliyaan iyo meel boqolkiiba 50 ciidanka Bishaar al-Asad ay ka taliyaan. maadaama kala bar ay noqdeen, barna mucaaradka uu ka taliyo, barna Bishaar al-Asad uu ka taliyo, mucaaradka dhexdoodii waxaa soo kala dhex galay khilaaf xoogan. mucaaradkuse waxa ay halkani qabsadeen intii u dhexaysay 2012 ilaa 2013, balse mucaaradka dhexdoodii marka uu khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay, waxaa halkani qabsaday ururka loo yaqaano BYD. ururkani ama baartigani waxaa la aasaasay 2003. hadafkooduse waa in hareerahani Turkiga oo dhan in ay maamulaan. xisbiganise waxa ay rabaan dadka Kurdida ee gaar ahaan hareerahani dalka Turkiga ku badan in ay dowlad cusub u sameeyaan. si kastoo ay ahaataba, waqti xaadinkani mawduucaas maadaama Kenya uusan ahayn xisbigani Kurdiga ahna, siyaasadiisii qarsoon ee aasaasitaanka dowladnimada ayuu bilaabay. kadibna mucaaradkii ay isla soo dagaalameen ayaa waxa uu bilaabay in dhul uu ka qabsado. si kastoo ay noqotaba, qeybo badan oo ka mid ah goobaha jaalaha ah oo dhan waxaa qabsaday xisbiga Kurdishka. dagaalkani xisbiga Kurdiga iyo mucaaradka u dhexeeya marka uu aad u ziyaaday, ciidanka Bishaar al-Asad waxay ahaayeen kuwo daawadayaal ah oo keliya. dagaalkani inta uu socday, urur kale ayaa soo ifbaxay, waxa uuna ururkani uu ku hunguriyey in dagaalkani uu ka dhex faa'iideysto, halkaasina isaga inuu qabsado. waana ururka Daacish ama ISIS loo yaqaano. ururkani ISIS waxa uu ahaa urur laga soo bilaabo 2007 dalka Ciraaq ka jiray. ururkani dalka Ciraaq waxa uu haystay goobaha shidaalka, goobaha ugu muhiimsan, maadaama ururkani uu haystay urur argagixiso lagu sheegay kan ugu taajirsan waa ururka ISIS. marka ay aragtay kooxahani in tabarna aysan lahayn, sidoo kalena dhexdoodii ay dagaalamayaan, waxay u aragtay fursad weyn oo dagaal ah in halkani ay ka jirto. isla markiiba ururka ISIS maadaama hub ay haystaan iyaga oo aanan ku dhibtoon ayay soo galeen si degdeg ahba halkii isku haysteen badankoodii waxaa qabsaday ISIS maadaama ay la wareegtay kooxdii Kurdishka ahaa iyo kooxdani kale ee mucaaradka, waxa ay noqdeen kuwa aad u daciifa. ISIS marka ay in badan ay qabsatay, waxa ay bilowday siyaasad laba jiha ah, in ciidanka Bishaar al-Asadna ay la dagaalanto, in Turkiga laftinkiisu digniino ay u soo dirto. ururkani Daacish ama ISIS goobaha uu Ciraaq uu ka maamulay dhaqaale badan maadaama uu haystay sida dowlad oo kale, wax walba loo baahan yahay oo dhan iyaga ayaa bixin jiray. si kastoo adduunka ururkani argagixiso
uu ugu anko. haddana markay isku dayeen dhulka uu dagaalka uu ka socda ee Suuriya in ay soo farageliyaan welibana ay qabsadaan, Turkiga laftinkiisu ay bilaabeen in digniino ay u soo diraan si aysan u faafin Turkiga dowladaha waaweyn ee adduunka. kadibna dowladaha adduunka oo dhan qaramada midoobay inta ay heshiisay ayaa urunkani waxaa u heshiiyey wadamo aad u badan, khaasatan wadamada adduunka oo dhan laga soo bilaabo Australia, Bahrain, Belgiumka, Canada, Denmark, Masar, Faransa, Iiraan, wadamo badan, Urdun, Liibiya, Holland, Qatar, Ruushka, Sacuudiga, Mareykanka iyo Turkiga oo dhan. wadamadan inta ay isbahaysteen ayaa diyaarado waxa ay bilaabeen in ay duqeeyaan. waxaa ISIS loo geystay 193 duqeyn. nasiib wanaag in badan dhulalkii ay haysteen waa laga saaray. urunkani ISIS marka ay deegaanadani oo dhan ay qabsadeen ayna bilaabeen in Turkiga digniino ay u soo diraan si ay Turkiga ugu muujiyaan in halkani ay haystaan. waxa ay bilaabeen in Turkiga gudihiisii qaraxyo ay ka fuliyaan. magaalada Ankara sidoo kaleetana qaybo badan oo ka mid ah hareerahani oo dhan, yacni xuduudda gobolada u dhow oo dhan, qaraxyo isdaba joog ah ayaa maalmo kala duwan ka dhacayay, waana 2015 iyo 2016. xilligani Turkiga marka uu dareemay in dadkani halis ay yihiin, dhaqaalana ay haystaan, wadankana qaraxyo noocani oo kale maadaama awood ay ku fuliyaan ay haystaan, waxa uu go'aan ku gaaray gobolada ay haystaan oo dhan in laga nadiifiyo. isaga oo kaashanaya dowladaha adduunkana sidii ay rabeen waa ay ku guuleysteen oo ISIS oo dhan waa laga saaray. diyaaradaha dowladaha qaramada midoobay marka ISIS duqeymo ay u geysanayeen, ciidanka mucaaradka ah iyo ciidankii Kurdishka ahaa iyo ciidankii Bashiir al-Asad waxaa loo adeegsanayay dhanka iyo dhulka. meel walba oo diyaaraduhu ay duqeeyaan iyaga ayaa gelayay. sidaasina ISIS oo dhan waa laga ciribtiray dhulkani la isku haysto ama dhulkani dagaalka uu ka socdo in ay ku guuleystaan haysashadiisa. tanina waxa ay aad u soo yaraysay ISIS awoodda ay deegaanadani oo dhan ay ku lahayd. si kastoo ay ahaataba marka ISIS dhulkani oo dhan laga ciribtiray, isla sidii oo kale dagaalka booskiisii ayuu ka bilowday. ka hor intaanan u gudbin dagaalada sida ay ku bilowdeen, xaaladahani dagaalka ay jiraan oo dhan 100,000 ayaa adduunka daafihiisii u soo qaxday. in badan oo ka mid ah dowladda daraska ee Turkiga ayay soo aadeen, in badan oo ka mid ahna Cumaan iyo wadamada kale ee Carabta ayay soo guda galeen. si kastoo qaxootiga uu adduunka oo dhan ugu faafay, haddana wadamada ugu badan ee daraska ay aadeen waa wadamada Carabta iyo Turkiga. qaar badan oo dhanka iyo Yurub u gudbayna inkastoo ay jiraan, waxaa bilowday qaxooti xoog badan inuu faafo. si kastoo ay ahaataba markii ISIS dhulkani oo dhan laga saaray, ciidankii Bashaar al-Asad waxay xal u arkeen sidii ISIS looga saaro oo kale in mar kale ciidankani Bashaar al-Asad in dalka oo dhan ay qabsadaan. mucaaradkii oo jabhad gooni ah noqday iyo urunka BYD loo yaqaano ee Kurdida in uu dalka ka saaro si dalka oo dhan Bashaar al-Asad xukuumad uu ka taliya u dhalato. laakiin tani laguma guuleysan. ciidankani waxay ka bilaabeen ciidankani Kurdida in ay duqeeyaan. isla markii duqeynta ay ku bilaabeenba waxaa soo guda galay Mareykanka iyo Ruushka, waxaana lagu dhahay ciidankani Kurdida ma duqeyn kartid. sababta ay sidan u yeeleenna ma in Kurdida dowlad qaas ah oo Turkiga ka go'da oo qaas ah in loo aqoonsado miya, ama sabab kale lama saadaalin karo. si kastoo ay ahaataba halkani waxaa ku jiro geem aad weyn. waxay ahaataba Bashaar al-Asad ciidankiisu way ka tanaasuleen in Kurdida halka ay maamulaan oo dhan inuu duqeeyo. sidaasi darteeda goobaha mucaaradka ay maamulayeen ayaa la bilaabay in la duqeeyo. markii mucaaradka uu duqeeyay, Turkiga waxa uu arkay halkani in siyaasad xoog badan ay ka socoto. madaxda Turkiga oo dhan inta ay wada kulmeen ayaa waxa ay soo saareen qodoba in urunkani BYD loo yaqaano in argagixiso uu yahay iyo ururada kale ee yaryarka meelahani ka howlgala. waayo Turkiga waxa uu fahmay xisbigani Kurdida ah in siyaasad dushiisii lagu ciyaaray inay tahay. sidaasi darteeda argagixiso in la ciribtiro mudan ayay dowladda u aqoonsatay. laakiin adduunka kale sida Mareykanka iyo wadamada lamidka uma aqoonsano. Turkiguse ciidamo aad u badan ayaa waxa uu bilaabay in xuduudda uu keeno, waayo ciidankani inuu iska difaaco danta ayaa ku kalifi karta. sida halkani dhacdayba in Turkiga ay soo guda galaan, waayo Kurdidani sidoo kale waa dad meelahani deegaanada Turkiga oo dhan awood ku leh. laga soo bilaabo magaalooyinka Mardin, Shirnak,
Hakani iyo sidoo kale Adyaman. Inkastoo Adyaman deegaanada ay ku yar yihiin, haddana waxaa la dhihi karaa hareerahani oo dhan waxaa ku badan Kurdida. Xitaa dad ajaaniba in deegaanadani Turkiga ay ku noolaadaan waa goobo halis ah oo aanan u wanaagsanayn. Inkastoo Soomaali ku nool ay jirto, haddana goobo u wanaagsan maaha, waayo goobahani haddii taariikhda dib loogu laabto sanadyada 2013 ilaa xitaa 2017 waxaa ka dhici jiray qaraxyo, sidoo kalena qalalaasooyin xoog badan ayaa ka dhici jiray. Xitaa dad aad u badan ayaa halkani laga afduuban jiray. Turki badan ayaa laga afduubtaa. Goobahani oo dhan ma aha goobo amni ah, waa goobo ciidamada Turkiga iyo sirdoonadu sida aadka uga howlgalaan, waayo halkani Daacish iyo ururo kala duwan ee ciidamo ajaaniba sida dowlado kala duwan Mareykanka iyo Ruushka adduunka oo dhan ayaa ereyadan waxa uu isku dayaa in game uu ka sameeyo. Sidaasi darteeda, si kastoo ay ahaataba goobahani aanan amniga ahayn, inkastoo amni ay yihiin oo lagu nool yahay waxba aysan ka dhicin, haddana waa goobo haddii Turkiga ay wax ka dhacaan goobaha ugu horeeya ee sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax ka dhici karaan. Si kastoo ay ahaataba, Turkiga si uu xuduudiisii uu u nadiifsado waxa uu bilaabay halkan in ciidankiisii uu ku soo badiyo. Kumanaan kun oo askar Turki ah ayaa waxaa la bilaabay in xuduudani la dhigo. Haddaba Turkiga marka uu xamili kari waayay qaxootiga aadka u badan ee Suuriyaanka ah ee dalkiisii soo galaya, waxa uu bilaabay game cajiib ah inuu ciyaaro. Waxa uuna dhahay deegaanada dadkani hubaysan ee Kurdida ay ku badan yihiin, maadaama argagixiso aan u aqaano waa in aan ka saaraa, kadibna waa in aan dejiyaa qaxootiga igu soo qaxay halkani si ay iyaguna ciidoodii amni ay ugu helaan, aniguna waddankeygii u noqdo mid amni ah. Sababta Turkiga sidani uu u sameynayay waxa uu doonayay in urankani uu ka adkaado, halkani uu ka saaro, marmarsiyana ay ugu noqoto in dadkani uu dejinayo. Go'aankani Turkiga uu soo gaaray marka ay Kurdidani maqleen, waxa ay bilaabeen sida Xamaas oo kale in gantaalo Turkiga ay ku soo tuuraan. Gantaalo aad u badan ayaa waxay ku soo dhacayeen xuduudaha meelaha u dhow. Si kastoo ay ahaataba, ciidamada Turkiga si kastoo deegaanadan iyo diyaaradooyinkiisa ay u dul socdaan, Turkiga waxa uu bilaabay dhan kale inuu ka soo galo. Waxa uu bilaabay halka Afrin loo yaqaano ee Suuriya ka mid ah in ciidankiisii uu soo geliyo. Ciidankiisii iyo ciidan Suuriyaan ah uu aad u soo tababaray oo mucaaradka Bashaar al-Asad ka soo horjeeda isaga oo kaashanaya ayaa waxa uu soo galay Afrin. 2 bilood ayaana halkani howlgal xoog badan uu ka socday. Waxa ay halkani ka ciribtireen cid walba oo haysatay. Kadibna halkani Turkiga waxa uu qorsheynayay inuu dejiyo dadka qaxootiga ee ku soo qaxay. Xaaladdu marka ay halkani maraysay, diyaaradihii Bashaar al-Asad ayaa waxa ay bilaabeen in ay duqeeyaan halka Turkiga uu haysto, waayo intani wixii ka horay ciidanka Bashaar al-Asad iyo Turkida si foolka foola uma aysan dagaalamin. Turkiga muddadani oo dhan waxa uu ku guda jiray ilaalinta xuduudihiisa iyo sidoo kale inuu iska ilaaliyo ururadani in dalkiisii ay soo galaan. Si kastoo ay ahaataba, markii diyaaradaha Bashaar al-Asad halkani ay duqeeyeen, isla markiiba ciidanka Turkiga halkii uu haystay waxa uu bilaabay inuu ka soo gudbo oo Suuriya oo dhan gelin toos ah inuu ku soo sameeyo. Ciidanka Turkiga maadaama Bashaar al-Asad xukuumaddiisii ama ciidankiisii aysan ku aadin, isla markiiba dowladda Ruushka ayaa soo gudagashay, waayo Turkiga qalalaaso toos ah Suuriya haddii uu ku sameeyo waxaa suurtagal ah in xukuumadda oo dhan inqilaab uu ku sameeyo. Si taasi aysan u dhicin, Bashaar al-Asad iyo Ruushka iyo Mareykanku maadaama ay isku fiican yihiin, taageerana aysa siiyaan, isla markiiba waxaa soo gudagalay Ruushka. Ciidamada Turkiga marka ay noqdeen, Turkigu waxa uu shardi uu ka dhigtay hadalkana uu ku aqbalaya in xuduudiisii goobaha u dhow oo dhan waa in ururka argagixisada uu u yaqaana ciidankani hubaysan ee Kurdida in laga saaro, waayo Turkiga waxa uu daliil uu ka dhigtay in dalkiisa halis inay ku tahay. Dowladda Ruushkana go'aankani inay aqbasho danta ayaa ku kaliftay, waayo sababtoo ah waxaa dhici kara cagsigeeda in Turkiga iyo Suuriya kadib geemka inuu isku bedelo. Sidaasi darteeda 12 kiiloomitir masaafadan ayaa waxaa laga saaray ciidankani hubaysan ee Kurdishka. Ciidankanise deegaanada laga saaray ilaa hadda khilaafka iyo dagaalka waa uu socdaa. Maalin walibase askar Turkiga ayaa lagu qanxiyaa, iyaguna dad ayay soo qabsadaan. Sidoo kale deegaankani waa deegaan aanan xasiloonin ilaa maanta. Dagaalkii iyo kacdoonadii 2010 soo bilowday ilaa maantana sidaasi ayuu ku socdaa, maadaama dowladda Turkiga, Ruushka, Mareykanka iyo dowlado kala duwanba halkani dhaqdhaqaaq ay ka wadaan, mid walbana saldhigyo gaar ah uu ku leeyahay hadba urur ay taageerayaan.
khilaafaadka iyo dagaalka iyo malaayiin qofa inay qaxaan tani ayaa sabab u noqotay. wax walibase aasaaskoodii waa dowladda Bishaar al-Asad, waayo Bishaar al-Asad ma uu doonay in xukunka uu ka dego. inuusan xukunka uu ka deginna dowlado badan ayaa sidaa kula talinayo, isaguse waddankiisii iyo dhibka dadkiisii soo gaaray uma uusan taxadarin. si kastoo yahaataba dagaaladani 10 sano ee deegaanadani ka socday 10 milyan oo qof ayaa ka qaxday. 1 milyan oo qof ahna waa ay ku dhinteen. inkastoo 1 milyan oo qof in ay ku dhinteen dadku aysan dareemsaneen. ugu dambeyn muxuu deegaankani uu ku dhammaan doonaa? Suuriyase sideedii hore barwaaqada ay ahaan jirtay ma ku soo noqon doontaa? waa su'aalo ilaa hadda aanan la saadaalin karin. laakiin ugu yaraan ururadii awoodda halkani ku lahaa waa laga saaray. xuduudda Turkiguse wax problem ama walwal ah oo waqti xaadankani ka taagan ma ay jirto. dadka cadowga u arka ama argagixisada Turkigu u arka kooxdani hubeysan 12 kilomitir masaafadan ayay ka jiraan. tanina waa qisada ama taariikhda kooban laga soo bilaabo 2010 ilaa 2020 khilaafaadka iyo dagaalada xoog badan iyo isku taga dowladaha kala duwan ee Suuriya iyo khilaafaadka dalka Suuriya ka dhex taagan halka uu ka bilowday iyo sida uu u socdo.